assalaamu calaykum. Waxaa jira laba nin aan weligood goob dagaal lagu jebin. Labadaa nin si weyn baa loo garanayaa. Labadaa nin midna muslim buu ahaa, midna gaal buu ahaa. Intaan mawduuceena bilaabin, fadlan muuqaalkan like inoo saar, sababtoo ah dhiirigelin bay noo noqonaysaa. Kuna soo biir kanaalkeena Xog Baahiye adigoo subscribe taabanaya. Ninka muslimka ah baa ku hormaraynaa. Ninka koowaad aan ka hadlayno ee aan weligiis goob dagaal lagu jebin waa Khalid ibn Waliid. Khalid aabihiis waxaa la dhahaa Waliid ibn Mughira. Wuxuu ka mid ahaa raggii Quraysh ugu magacayo sumcadda weynaa. Waana ninka Ilaahay Quraanka sirtiisa ku soo bandhigay aayadaha suuradda qalam ku jirta sida hamaazin mashaa'in binamiim mannaacin lilkhayri muctadin asiim cutullin bacda daalika zaniin an kaana daa maalin wa baniin idaa tutla calayhi aayaatuna qaala asaadiiru awwaliin. aayadaha waxaa laga hadlayaa Khalid ibn Waliid aabihiis ee Waliid ibn Mughira. Waliid ibn Mughira wuxuu ahaa nin gaal ah buu ahaa, gaalnimuuna ku dhintay. Khalid ibn Waliid isagoo aad u da'yar ayuu bartay fardafuulnimada iyo qaabka loo dagaalo. Khalid ibn Waliid iyo Zubayr waxaa lagu tilmaamaa waa labada nin ee keliya iyagoo faras saaran laba gacan ku dagaalami kara, laba seeftay ku kala qaataan. waxaa laga yaabaa inaad istirahdid dagaalkii Badar ee Quraysh lagu jebiyey Khalid soo kuma jirin dagaalkaas. Maya, Khalid markii dagaalka Badar la galayay waa uu maqnaa, waxa uu aaday dhulka iyo Shaam. xilliga uu dagaalkaasi dhacayay ma joogin, laakiin sanad kadib dagaalkii Uhud baa dhacay. dagaalka Uhud 100% waxaa Quraysh guusha siiyey Khalid ibn Waliid. dagaalka Uhud muslimiinta ayaa markii hore guuleystay. Khalid markii uu arkay in ciidankii Quraysh la jebiyey, fursad muhiim ayuu helay. fursadaasi waxay ahayd Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam koox muslimiin ayuu buurta saaray. wuxuu yiraahdaa buurta ka soo deganina. kooxdii buurta la saaray badankoodu way ka soo degeen. halkaasi Khalid fursad baa uga banaanaatay, fursadaasuna ka faa'iideystay. dhabarjebin buu muslimiinta ku sameeyey ilaa muslimiintii la laayay 70 qof baa laga dilay. xitaa dagaalka Uhud heer wuxuu gaaray in Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam dhaawaco. asxaabtan ay u maleeyeen in Nabi Maxamed la dilay. jabka weyn ee muslimiinta soo gaaray waxa u keenay u horseeday waa amarkii nabiga ay khilaafeen. kadibna Khalid ibn Waliid ayaa fursadda ka faa'iideystay. Khalid ibn Waliid xilli dambe ayuu soo islaamay. markii Maka la furanayay wax yar ka hor buu soo islaamay. markuu sidaa u soo islaamay isla markii waxuu ka qayb qaatay dagaalkii Mu'tah. dagaalkaasoo muslimiinta guul weyn ay soo gaareen. walow guusha ay muslimiinta gaareen 100% aysan ahayn, laakiin waxaa loo xisaabiyaa in dagaalka Mu'tah ay guusha muslimiinta heleen. dagaalkaasi nabiga 3 qaa'id buu u sameeyey, 3 hogaamiye. 3daa haddii mid la dilo kan kale calanka qabanaya, haddii mid kale dilo kan kale qabanaya. 3 hogaamiye baa dagaalka loo sameeyey. 3dii nin uu nabiga hoggaanka u doortay 3diiba waa la dilay. intaa kadib waxaa hoggaanka muslimiinta la wareegay Khalid ibn Waliid. Khalid ayaa muslimiintiina soo badbaadiyey. dagaalkaas Khalid seefo aad u badan ayaa gacantiisa ku burburay oo ku dhammaaday. markii dagaalka laga soo laabtayna waa markii Khalid ibn Waliid loo bixiyey sayfullahi al-masluul, waxaana u bixiyey nabiga sallallahu alayhi wasallam. markii nabigu uu dhintay sallallahu alayhi wasallam waxaa khilaafada la wareegay Abubakar as-Siddiq. Abubakarna abaanduulihiisii koowaad ee ciidamadiisa u hogaaminaya waxa uu ka dhigtay Khalid ibn Waliid. Khalid ibn Waliidna magaalooyin badan buu furtay ilaa dowladdii weyneed ee Furus intoodii badneed oo dhulka la simay. heer waxa ay gaareen markii ay magaca Khalid ay maqlaan ay ka cabsadaan. dagaalo aad u waaweyn oo lagu xasuuqayana waa uu geystay. markii Abubakar as-Siddiqna dhintay waxaa khilaafada la wareegay Umar ibn Khattab. Umarna abaanduulihii uu Khalid ahaan jiray waa uu ka qaaday. sababta uu uga qaaday waxaa lagu tilmaamaa waxa uu ka baqay in muslimiinta ku fitnoobaan, waayo muslimiintu waxay isleeyihiin dagaal uu Khalid ku jiro laguma jebinayo dagaalka galab isleeyihiin, oo waxayba u malaynayaanba in guushu ay Khalid wadato. si ay muslimiinta ugu fitnoobin ayuu Khalid hoggaankii ciidanka ka dejiyey. Khalid ibn Waliid weligiis goob dagaal uu galay weligiis laguma jebin. waxa uuna ku dhintay isagoo firaashkiisa jiifa. jirkiisa haddii la eego meel walba seef iyo waran baa kaga taala, oo meel bannaani ma jirto. ninka labaad ee aan goob dagaal weligiis lagu jebin waa Alexander the Great. reer galbeedkuna waxay u yaqaanaan
hogaamiyihii ugu khatarta badnaa adduunka. Alexander the Great dadka qaar ayaa waxay ku khaldaan inuu ahaa Dulqarnaynkii Quraanka lagu sheegay, laakiin taasi waa been. sababtoo ah Dulqarnayn Ilaahay waxau ku tilmaamay inuu ahaa nin wanaagsan oo muslim ah, laakiin Alexander the Great sidaan dhammaanteen ognahnay wuxuu ahaa nin gaal ah, marka marnaba ma noqon karo Dulqarnayn. Alexander waxa uu ku dhashay Macedonia 56 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise. micnihii Nabi Ciise intuusan dhalan 56 sano ka hor buu Alexander the Great dhashay. isagoo aad u yar ayuu bartay qaab dagaaleedka. wuxuu ahaa nin cilmi leh oo falsafada iyo suugaanta waxaa baray filosofkii weynaa ee caanka ahaa ee aan dhammaanteen naqaano, Aristotle. Alexander aabihiis waxaa dilay ilaaladiisa sida la sheego. markii la dilay Alexander aabihiis, dad badan ayaa waxay u hanqaltaageen oo ay ku hamiyeen inay xilka ku fariistaan, laakiin geesiga Alexander the Great arrintaa kama yeelin oo dagaal buu ku qaaday ilaa uu dhammaan ka soo afjaray dadkii ku taamay inay xilka qabtaan. isagoo 20 jir ayuu noqday boqor, 12 sanana boqor ayuu sii ahaa. Alexander the Great waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo aad u maskax badan. maskax badnaantiisa ayaa keentay in meelo aan la filayn iyo qaab aan la filayn iyo ciidan aan laga filayn inuu guusha siiyo. dowladdii weyneed ee Faris ayuu weeraray, waxa uuna qabsaday magaalada Suusa oo maanta ku taala dalka Iiraan. waxa uu rabay in dowladda Faris iyo dowladdiisa uu mideeyo. gobollo badan ayuu la wareegay sida Bakistaan, Afghanistan, Iiraan, Masar iyo meelo kale oo badan. xitaa magaalo Masar ku taala ayaa isaga loogu magac daray, waxaana maanta la yiraahdaa magaaladaas Alexandria. 19,000 oo kiiloomitir ayuu ciidankiisa la safray, waxa uuna dhulka ballaaran ku qabsaday muddo 12 sano ah. waxaa la sheegaa inuu dhintay isagoo 32 sano jir ah, waxa uuna ku dhintay dhulka maanta loo yaqaan Ciraaq. sababta uu dhintay ee rasmiga ah ilaa maanta si fiican looma yaqaano, laakiin taariikhyahanadu waxay sheegaan dhaawac soo gaar inuu u dhintay. qaar kalena waxay dhahaan wuxuu u dhintay cudurka malaariyada loo yaqaano. calaa kulli xaal, Alexander the Great iyo Khalid ibn Walid waxaa la sheegaa in weligood goob dagaal aan lagu jebin. intaasuu mawduuceena ku eg yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.